xarunta waxaa la aasaasay 2022 laakiin waxay shaqo ahaan ama muddo ay soo shaqeynayso 2021 sababta loo aasaasana waxay tahay gaab caafimaad ama maxaa la dhibaato caafimaadka dhankeeda bulshada ka haysato ayaan anagu aragnaan u aasaasnay ujeedkeedana waxay tahay si loo helo hal dhaqtar hal hosbitaal uusan qofka istaagsanaan maalinba hosbitaal taa waxay naga saacideeyeen dhammaan isbitaaladana soo dhaweeyaan fikrad ahaanteena naguna dhawaaqaan inayna siiyaan kaar caafimaad kaarkaasoo hooyada Soomaaliyeed ku helayso la kulanka dhaqtarka muddo hal sano free sidoo kale discount ama maxaa la yiraahdaa qiimo dhimis balaaran ee loo sameynayo qofkii kaarkeena wato ee tixgelin gooni ah qofka oo yeelanayo marka ujeedkeena waxay tahay in la joojiyo maalinba hosbitaal inuu qofka taagnaado iyo farmasi inuu daawooyinkiisa ka xalisto ama asaga dhaqtar qofka isku noqdo oo joojiyo health cares Somali Health Cares waa xarun loogu talagalay ama adeegeedu ay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka caawiso in kaar ay helaan caafimaad qofku uu ku xirnaado hal dhaqtar sidoo kale ay ka caawiso in dhibaatooyinkii badnaa uu qofkii feelal dheer u tagi lahaa isbitaalada kaararkii waqti badan uu qaadan lahayd inuu helo inuu si fudud ku helo waxaan sameynaa qofka macaamilka ahi iyo waxaan isku xirnaa isbitaalada dhammaan isbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho ayaan la leenahay xiriir kala duwan waxaan qofka macaamilka ah u fududeynaa in si fudud uu ku helo kaar caafimaad oo waqti walba iyo muddo walba uu ku tagi karo isbitaalka waxa intaas dheer oo qofka macaamilka ka u fududeynaa ama ka caawinaa in qiimo dhimis loo sameeyo oo adeegyada caafimaad oo kale markii loo sameeyo Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waa Maida Cabdi Maxamed waxaan ahay secretary company-ga Somali Health Care Center company-gaas oo bulshada usoo kordhiyay adeegyo aad wanaagsan ay ka mid yihiin kaarar caafimaad kaarkaasoo ay bulshada u fududeynayaan inay ku xirnaadaan hal isbitaal iyo hal dhaqaatiir ayagoo helayaan adeegyada isbitaalkaas discountiyo sidoo kalena dhaqaatiirta isbitaalkaas fariisato dhan ay kula kulmayaan si free ah ay kaarkeena ay ku helayaan sidoo kale tan oo kaarkan aan ugu soo kordhinay anagoo fiirinayna bulshada danta yar ee Soomaaliyeed iyo kuwooda danta lehba oo yacni dhaqaalaha lehba anagoo sameeyno kaarkan ay ku register gareysanayaan lacag wada siman aadna u yar una keenay adeegyadaas isbitaaladkan uga soo dhameynay inay kula kulmi karaan dhaqaatiirta isbitaalkaas si free ah family card oo ah kaarka family-ga oo ku xirnaanayaan family-ga dhan halkaas isbitaal